Soomaaliya ayaa guul diblomaasiyadeed ka gaartay Itoobiya xilli khilaafka xooggan ee soo kala dhex galay labada dal markay Addis Ababa ku saxiixeen heshiis ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaasoo dhigaya in Itoobiya ay ka qaadato qayb xeebaha Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya dhulbadeed gaaraya 20 kiiloomitir ayna ka samaysato dekad iyo saldhig military. Heshiiska oo dhacay 1 bishan Janaayo ee sanadkan ayaa ka dhex abuuray labada dawladood xiisad diblomaasiyadeed iyadoo dawladda Soomaaliya ay u yeeratay safiirkeedii u joogay Addis Ababa wada tashi awgeed. Madaxweyne Xasan ayaa ku tilmaamay Itoobiya cadow la mid ah kooxaha argagixiso ee diidan nabadda iyo horumarka Soomaaliya. Warbixinta waxaynu ku eegaynaa isbahaysiga cusub ee Muqdisho, Asmara iyo Qaahira, Djibouti oo laba kala doorasho ay hor u yaalaan iyo shirka IGAD ee la filayo dhawaan inuu qabsoomo. Tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee qaaday dawladda Soomaaliya ee guusha u soo jiiday markii Addis Ababa lagu gaaray heshiiskan qayb ka mid ah Itoobiya loogu beecinayo badda Soomaaliya. Dawladda ayaa u dhaqaaqday sidii Itoobiya loo saari lahaa culays diblomaasiyadeed kaas oo ku khasba inay ka laabato damaceeda xeebaha Soomaaliya oo ah mid soo jireen ah. Muqdisho ayaa ku soo celisay dalka safiirkeedii ku joogay Addis Ababa iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ay dirtay waraaqo kala duwan oo saameyn ku leh siyaasadda gobolka Geeska Afrika. Mareykanka, UK iyo ururada caalamiga ayaa taageeray Soomaaliya waxayna tilmaameen in qadcas ay tahay faragelinta midnimada dhuleed iyo midda dadeed ee Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya loogana baahan yahay Itoobiya in gabi ahaanba ay faraha kala baxdo. IGAD ayaa fadhi degdeg ah maalmahan ugu soo wajahan ka yeelanaysa arrimaha labada dal inkastoo shirgudoonka IGAD oo ay hayso Djibouti hadda wali xaaladdu aysan aragti cad ka qaadan laadahay. haddana midda la hubo waa inaysan Itoobiya aad ugu qanacsanayn ka qaybgalka madasha IGAD oo ay si cad u sheegayso bareeraheeda inay u baahan tahay bad ay hesho oo biyaha badda cas laga siiyo taasoo la aaminsan yahay inaysan ahayn dhacdo iska taagan ee ay ka duwan tahay geedi socodiyadii la soo dhaafay. damaca Itoobiya ee ku aadan inay hesho bad ay leedahay ma aha mid maanta bilowday sida ay qabaan dad badan oo taariikhda darsaya. Itoobiya waxa ay dhawaan ra'iisul wasaareheedu uu ku dhawaaqay inay qasab tahay in 150 milyan ee dadkiisa uu helo bad ay ka helaan waxa uu ugu yeeray cunto ku filan iyo sidoo kale inay dunida kala xiriiraan. ma ogtahay faras taxina asbuuc walba ka samayn kartid lacag 2,000 taaban iyo offer haddii aad qaadato 10 trip waxaad helaysaa 500 oo faras maylis ah, haddii aad qaadato 15 trip waxaad helaysaa 1,000 faras maylis ah, ama haddii aad qaadato 30 trip waxaad helaysaa 2,000 oo faras maylis ah. haddaba la soo deg abka faras. waxaana meesha uu ka saaray in badlaan ay sii ahaadaan taasoo uu sheegay in looga baahan yahay inay ka fakaraan hogaamiyaasha gobolka oo uu tilmaamay in dhammaan ay badan leeyihiin. si ay ogaatay Galen Media, Itoobiya ayaa ilaa hadda ka wareegaysa ka qaybgalka madasha waxaan ra'iisul wasaaraha dalkaas uu sheegay inuu dirayo ku xigeenkiisa laakiin sida lagu aqbali karo ka soko waxa taagan doodda la xiriiraysa inaysan Addis Ababa u arkin dhacdada ay ku dhaqaaqday mid taabanaya madaxbannaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ama qalad diblomaasiyadeed oo ay gashay taasoo la aaminsan in Itoobiya ay si cad u xadgudubtay oo qaaday tallaabo iyada oo og waxyaabaha ka dhalan kara. baaq loo diray Addis Ababa dalalka caalamiga ee taageera Soomaaliya iyo kuwa quwadaha waaweyn ururada caalamiga ayaa ugu yeeray Itoobiya inay ka laabato kana dheeraatay heshiiska baalmasha sharciga iyo qaybinta midnimada Soomaalida. waa guul diblomaasiyadeed marka loo eego fagaaraha caalamiga in Soomaaliya oo muddo dheer aan lahayn dawlad cagaheeda ku taagan ay kaga adkaatay Itoobiya diblomaasiyadda taageerana waa shadiidmadeeda damaca Addis Ababa laakiin in aqoon la'aan ficiladan ka yihiin Itoobiya waa la diiday waxaana sabab looga dhigay in Addis ay tahay dawlad weyn oo garanaysa heerka diblomaasiyadda iyo curfigaba. isbahaysigan sahalka ahayn ee Muqdisho, Asmara iyo Qaahira toddobaadkii hore madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u degdegay tagidda Asmara markii 1 bishan Addis Ababa lagu seexay heshiiskan kaasoo gundhiga ugu weyn ee ciidanka Itoobiya ay u ahayd inay saldhig military ka samaystaan xeebaha Soomaaliya iyadoo aan la warsan dhinaca dawladda federaaliga ee sharciga. isla maalin kadib soo laabashada madaxweyne Xasan Sheekh waxaa tagay Asmara wasiirka arrimaha dibadda ee Masar oo geeyay dambaal uu ka siday Cabdifataax Siisi waa Itoobiya si baan isugu hayaan arrimaha biyaha webiga Niilka taasoo muujisay halka ay qadiyaduhu isaga xiran yihiin. isku xiranka siyaasadda Geeska Afrika marka laga hadlayo masaarida iyo Eritrea ayaa waday am dheer ahaa sanooyinkii la soo dhaafay ay colka haayeen Asmara iyo Addis Ababa laakiin wixii ka dambeeyay markii 2018 isbedel baaxad weyn ka dhacay siyaasadda gudaha Itoobiya waxa yaraaday xiriirka Qaahira iyo Asmara inkastoo uusan marnaba gaarin heer hooseeya. haddana madaxweyne Afwerki waxa loo arkayay inuu noqon karo xaliifka ugu wanaagsan ee geeska lagu yeelan karo. 2020kii Soomaaliya iyo Eritrea ay dhex mareen booqashooyin siyaasadeed iyadoo durba ay soo laabatay xiriirka labada dal kaasoo go'ay markii Itoobiya sheegtay in Asmara taageerto kooxaha argixisada kadibna lagu soo rogay cunaqabateyn golaha ammaanka
sabab la xiriirta inay saameyn ku leedahay arrimaha gudaha ee Soomaaliya taasoo ay dad badan siyaabo kala duwan akhris ugu sameeyeen madaxweyne xasan sheekh oo xilligaasi si baan u diidanaa xiriir la yeeshay dhanka Eritrea ayaa hadda u arkay inay tahay fursadda ugu ballaaran ee gobolka laga heli karo in Eritrea saaxiib lala ahaado sida ay heshay Galal Media booqashada xasan ee Asmara iyo dambaalka Sisi ee gaaray Afwerki waxa ay doona shir saddex geesood oo maalmaha soo socda ay yeelan doonaan hogaamiyaasha dawladda federaaliga Eritrea iyo Masaarida kaas oo lagu garfayn doono iskaashi dhow oo dhex mara dhinacyada iyo dhismaha isbahaysi ciidan oo saddexda dal yeeshaan kaas oo si degdeg ah saldhig looga siin doono xeebaha badda cas haddii uu dhawaabo qorshahan waa culays aan fududayn oo Addis Ababa ay qaadi doonto kuna adkaanaysa maareyntiisa marka loo eego burburka siyaasadeed ee gudaha Ethiopia iyo kala dhantaalanka ciidamada malaayiinta ee dalkaasi ka soo iyo kala dhantaalanka xagga ciidamada ee Ethiopia ka soo gaaray dagaalada qowmiyadaha ku salaysan ee ka socda gudaha dalka Ethiopia marka laga hadlayo galka arrimaha badda ee Soomaaliya iyo damaca Ethiopia durba waxa soo hortumaya dhammaan qadiyada waaweyn oo saameyn ku yeelanaya mustaqbalka gobolka aan degan ee Geeska Afrika haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zaad, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PC